بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وين دي السلام ميل كستو الدنيا ذا كجوكتان من مشرق إلى مغرب من جنوب إلى meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan ba asxaabteeda waan idin salaamay waxaan idin leeyahay as always markasta aan idin dhaho waxaan idin leeyahay bashbash iyo barwaaqo iyo cafur raxmaan iyo cibaado suuban ku noolaada meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan waayo waxa ugu wacan ilaahay la weydiista waxa weeye waa cafi iyo caafimaad haddii ilaahay ku cafiyo caafimaadna ku siiyo tawfiiqdana ku waafajiyo dee wax kaa dhiman ma jirtaan falilaahi alxamdu wanicma saamahan marka waxaasaan idin dhaha markasta cafiya caafimaad ayaan ilaahay idin weydiinayaa marka asxaabteydii waxaan rajaynayaa inay wacan tihiin nabad qabtaan bashbash iyo barwaaqo ku siman tihiin waa walaashiin umu cabdiraxmaan oo jecel markasta inay idinla qaybsato waxyaalaha yaryar ee simbalka ee fudud ay ka faa'iido waxyaalahaasoo maaragtay aan u isticmaala naftayda oonan meel kala geynin ma fahantay markaas xaabay anigu waxaan idinla wadaagaa waa waxaan isticmaalo oo anigu nafsiyan u isticmaalo saraaxa waxyaalo badan oon jeclahay inaan sameeyo aan idiin soo bandhigo oo anigu aan allergy ku leeyahay baan iska dhaafaa waayo mar haddaanad naftaadi ku tajribeyn inaad isticmaalahaynin waa la iska daaya soo markaa wax allaalo waxaan idinka soo dhigo ama maaragtay idin keeno waxa weeyaan waa wax markaas xaabi waxaan idin leeyahay maantana kusoo dhawaada raabiro cajiib alcajab ah yacni maasha allah tabaaraka araxmaan yacni aan laga daba hadli karin waa maski waxaan dhihi karnaa gacmaha iyo lugaha iyo jidhka iyo wejiga aad u isticmaalaysid oo maasha allah tabaaraka raxmaan clean ku siinaya softi kaaga dhigaya taqshiir kuu sameynaya dead skinka kaa ridaya oo adiga dhan waxaan kugu yidhi si dabiici oo dembi la-aan oo naftaydana faa'iida ugu jirta kuu kala kicinaya saamahan marka alaabtan aan haysano ayaa ka kooban waxyaalahan iska reebo aniga aanan isticmaalin baa jirta sida lindhanaanta oo kale lindhanaanta waad isticmaali kartaa oo dadkaan allergiga lahayn way ku darsan karaan alaabtan laakiin anigu lindhanaan la-aan baan samaysanaya waxaan rajaynayaa sidaan u samaysto sida dadka sensitive skin kale oo kale allergiga dhibo oo kale oo anigoo kale uga faa'iidaystaan ayaan alaabtan idinku soo bandhigayaa labadaba qofba way ka faa'iidaysan karaan oo kii allergig leh sidaan u isticmaalaya kii aan lahayna waxyaalaha maaragtay aan waxba dhibina waxyaalo kale ayuu ku darsan karaa saa lindhanaanta oo kale markaas xaabey dadka qaar allergigooda waa kala nooc qaarba sibay allergi ku leeyihin soomahan anu marka wax tajribeynayaan marsanayo naftayda oonan hore u isticmaalin waan intaasaan sii adkaarsii akhrista waan ducaysta yaa rabbi yaa raxmaan yaa rabbi yaa raxmaan waxaasaani waxba yeelin yah markaas xaabay hadal badan haame lagama buuxshee alaabtan quruxda badan ayaan ku samaysanayna jidhka iyo lugaha iyo gacmahaba maasha allah tabaaraka raxmaan waxaan kugu yiri madmadow iyo adigu haddaa alaabtan laasimtaan saamaad arkin waa istaynaysiin waxyaalaha canqowgaasoo dhan madmadowgaasoo dhan waxaasoo dhan clean ayuu kaa dhigayaa waxyaalaha madmadowgoo dhan uu maaragtay ayuu kuu clean garaynayaa waayo dumar haddayna 24 saac gacmihiina waxaan kula jirnaa biyo waxaynu ku wadnaa maaragtay dee maasha allah shaqo badan baa lagu qabtaa soomahan marka iyagana ina sometimes daryeelo madmadowga maaragtay iyo waxyaalaha saaran oo dhan inaan ka rogno ayaa fiican maasha allah asxaabay halkan maxaa inoogu jiro waa cusbur halkan maxaa inoogu jiro waa gram frawil ama waxaan u naqaanay inaku shamburada halkan waxaa igu jirta waa sokor halkan waxaa igu jiro waxa weeyaan plain natural yogurt halkan waxaa igu jira kafee waa imse shay waa 5 shay iyo wixii adigu jeebkaaga ku darsan kartaa aan waxba ku yeelin intaas ayaan maskigeena ka samaysanaynaa waxaan bisinka ala lagu bilaabin faa'iido ma lahane bismillaah ayaan ku bilaabaynaayo alaabteena ayaan isku dardarsanaynaa maasha allah saxaabay halkan waxaa inoogu jira waa weelkii aan ku samaysan lahayn alaabaha aan samaysanayno waa weel nadiifa waxba kuma jiraan waxaan ku qasqasanaynaa alaabooyinka isku dardarsanayno halkan waxaa inoogu jira waa sokorta maaragtay cad ee caadiga ta powderka maaha watan shaaxa ku karsano bismillaah 2 qaando oo sokor ah ayaan halkaa kusoo ritay waxaan kaloo kusoo ridanayaa waa kafeega maaragtay niskafeega markiiba ka milmo weeyaan kaas
ee aan u baahnayn inaad shiidida in kale kaasna waxaan kasoo qaadanaynaa. waxaan uga baahannahay isagana 3 qaado. bismillaah. 1 2 3 3 qaando ayaan isagana uga baahannahay. kanna sidoo kale halkan maxaan ku ridanay waa 2 qaando sokor iyo 3 qaando oo eesh ah kafee ah. saxaabi halkan waxayna ugu jira waxa weeye shumburadii iyana waa almost 2 qaando hal qaandii bar adiga iska dheh oo shumburo ah ayaa halkan inoogu jira. halkan waxaa inoogu jira 1 qaando oo cusbur ah. waxaan isku daraynaa alaabtaas oo dhan ayaan isku dardarsanaa. marka waxaan kusoo darsanaa kale waxa weeyaan cusburkii ayaan kusoo darsanay asxaabe. cusburka waxaan kusoo darsanay alaabteena saan haddaad rabsid gacmuhu keliya tahay inaad u isticmaashid waxaad samaynaysaa inta waad ka yaraynaysaa. marka asxaabe waad ka yaraynaysaa. ani waxaan u isticmaalayaa gacmaha, lugaha, jidhka, wejigana sidoo kale waxaan isticmaalayaa waayo alaabtan wejiga waxba kama dhibayso. so waan isticmaalayaa maadaama liin dhanaantii ka reebay. halkana waxaa igu jira waa sabaadi ama yogurt qof walba siduu yaqaano. waa natural plain yogurtka caadiga aad cunaysid kaas weeye. bismillaah. isna waxaan kusoo darsanay 3 qaando. waxaan ku darsanaynaa sabaadiga inta qaando inooga qaato. marka basti fiican oon aadna u jilicsanayn adkayna dhagaxna ahayn ayaan ka rabnaa. soo maahan biyana kuma darayna wax kalena kuma darayna bas waxaan baan ku qasanaynaa waxaa weeyaan yogurtka. waxaan kala ku darsanaynaa wax yar oo kale oo maaragtay caanihii sabaadiga ah. sabaadigu waxay ku siinayaan caddaanan inaba caadahan. alaabtan hadda hase u carfayso maasha allah tabaaraka raxmaan. udgoon baa kugu yiri kafeegu maasha allah tabaaraka raxmaan. intaanadba maaragtay gaarin inaad jirka ku nadiifiso yani sida cajiibka ah cajabul cajabiinka ah ayuu noogu soo baxay. inaba caadi maahan inaba yani maasha allah tabaaraka raxmaan. saa ujeedin soft miskiisa halkaas ku jeclaanaysaa samahan aad iyo aadna u udgoon yahay. rayxadiisoo keliya tayaa maaragtay cajabinaysa si. marka asxaabi waxaan sameynaynaa gacmaha ayaan maaragtay ku bilaabinaa si tijaabo oo kale ayaan idiin tusinaa. bismillaah. qabowna wey maasha allah. sabaadiga waxaan kasoo bixiyay talaajada. alaabteena waa taasaan ku dhahay saasad ugu sameynaysaa scrub dead skinka ayuu kaa qaadaya maasha allah tabaaraka raxmaan baa kugu wejiga, lugaha, jidhka, meel aad qoorta aad ka dhaafisid haba yaraatee ma jirto. alaabtaas aad maaragtay saa ugu masaajeynaysaa. sokorta waxay ku siinaysaa waxa weeyaan scrub ahaan. kafeegana whiting buu ku siinayaa. maxay tooday shamburada sidoo kale madmadowga wejiga iyo gacmaha meelaha kaaga jiray kaa nadiifinaysaa. yacni cusburku sidoo kale kalar cajiib qurux badan buu ku siinayaa iyo fawaa'idiisa kaleba maasha allah tabaaraka raxmaan. waa alaab isu tagtagtay intuu waxyaalo dabiici ay ka samaysan tahay oo aanay ku jirin maaragtay maasha allah tabaaraka raxmaan. ilaa meeshanaad saa marinaysaa yacni jidhkoo dhan meel laba kama daynaysid.
markaad munaasabad leedahay oo kale markaad xinaa soo marsanayso sidoo kale aad asxaabi alaabta wax ka dhahaya waa alaabta arkaysiin maasha allah tabaaraka raxmaan intanoo keliya ku dhaafi maayo wejiga gacmaha jidhka lugaha intaba waanu isticmaalaya waa ku scrab caalamiya ayaan ka dhiganayaa waxaa asxaabi rajeynayaa inay ka heli doontaan maaskigan soo tajribeyn doontiin feedbackiina naga soo siin doontiin waxaana rajeynayaa ina ka faa'iidiin oo idin cajabiyo waa walaashina muddo cabdiraxmaan وما عبد الرحمن maxay jeceshay markasta inay idin la qaybsato waxyaalaha hubto faa'iidada maaragta hay idin la qaybsanaysa walaashiin ma sha Allah meel kasta waxaan leeyahay doonka joogtaan bashbash barwaaqo ku jooga iyo cafuur raxmaan fadlan like ta share ta subscribe ta commentiga waxaan ku wada dhankeena hanaga la bakhiilina ana wal maaragtay dadaalkayga oo si laba laabina insha Allah waxaan ilaahay waa ku mahadsantiin la socodkiina wanaagsan intay video ku xigo ku kulmayna asxaabay amaana Allah fi xifdi الرحمن